soo dhawaada saaxiibayaal waa subaxii labaad oo badda dhexdeeda ku jiro laakiin markan sidii hore xaalku waa ka degan yahay ilaahay wuuna badbaadiyey qoraxda laada soo bixi rabta waxaan bilaaban ilaahay ku xamdiyo midda kale ilaahay aan weydiiyo waddo aan ka baxno oon meeshan baddan kaga dhex baxno markan sacaygu wuxuu bilaabay inuu niyad jabo oo uu ooyo ilintii baa ka dhammaatay waayo mana duuli karo dhulna nooma dhawo waxa weeye wuu iska niyad jabay kadib aniga waxaa sameeyey sacayga inaan niyadda u dhisan dhaho don't worry anaa kula jooga anigaa ku caawinaya waan badbaadi doonaa midda kale ilaahay baa ina ilaalinayo ina soo badbaadiyey jawiga adkaaba waynu kasoo dhexbaxnay intaan aan ku samirno ugu dambeyn sacay waa iga ogolaaday marka waxa dhacday alwaaxa yarka ah haysana inuu noo hagaagay badda joogeedoo dhan waa degan yahay xilliguna waa xilli subax hore oo marka qoraxdu soo baxday waan iska soconay laakiin jihaan u socono garan mayno meel wax naga xigaan garan mayno meela ka nimi iyo meela u socono midna toona ma garanayno sidaan isaga soconay oon alwaaxa isaga saaraysanan oo ilaah isaga baryaynay ayaan hal mar waxa aragnay doon ama markab weyn oo noo soo dhawaaday runtii waa aamini weyne waa eegnay waa is eegnay annagii haddana marka laa fiirinay waxaa noqotay inaan haddana isfiirino dhana waxaan maku riyoonayna may waa riyoonayna mar kala eeganay mise wallah waa doon sax ah annagii farxad marka kan waa aamin weyne inaan badbaadnan doon helnay ugu dambayn dhalinyar meesha saarnay labanino meesha saarnaa baa waxaa noo soo tuuran xarig oo waxa uu yahay xarig jaranjar ah xarigii waa kornay waan ku badbaadnay alxamdulilah waxaa dhacdayna gacmaha kor taagno oo ilaahay ku xamdino ilaahay baa mahad iskale markale lasoo badbaadiyey markan waxaan imaadnay qol ka mida qolalka markabka waan nasanay waxbaan cunnay laakiin waxaa la yaab la sacayga wuxuu isiiyey diamond wuxuu yidhi markii maroodog ina dilaya ayaan xabad afka geliyey waan jijabiyo waan laqay hal xabo la yaryareeyo diamona ayuu isiiyey waxaa meesha ka helay kiish yar waan ku ritay waan ku faraxsanay dhinacna waan ku murugsanahay sacayga ilaa intii inuu caloosha ku hayo aniga darta ii xifdinaya diamondkaas markii la gaaray galabtii waxaa noo soo muuqatay qasar weyn oo meel jasiirada ku yaala halkan waxaa weeye halka uu markabka u socday magaalada markabka u socdo sidoo kaleeto wuxuu nagu yiri dadka nimanka markabka wata meeshan baa idin keenaya dadka degan waa dad fiican markaas waxaa laga yaabaa ayagu inay idinsii tilmaamaan meesha ah ka timi oo aa gartaan magaaladeeni iyo qasrigeeni meesha ku yaalay dee sidii baa dhacday balkoonkaan iska soo istaagnay waan daawanaynay qasriga weyn oo wada ifayo quruxda badan iyo jawiga badda dadkii qarqoomaba ma ahaba jawi kale oo qurux badan baa iska galnay xaaladdu waa noo kala degtay markan ugu dambeyn waxaa soo gaarnay dhismihii noo muuqday laakiin dusha sare wuxuu ka yahay dhagax laakiin hoostiisa ila fiiriya bal saaxiibayaal waa cajiib soo maaha gebigiisa waxaa lagu sharaxay oo laga sameeyey hoostiisa xitaa geedaha ku sharaxan waxaa laga sameeyey luul iyo diamond iyo macaadinta qaaliga ah waa meel qurux badan xitaa leerarkeedu waa diamond leerarka ka ifaya xoogaa markii aan soo socdoon dhex daawanaya waxaan imaaday meesha tan saaba diamond baa igu soo daatayba gacmaha u dhigtay maasha allah 6 xabo diamond baa helay anigu waxaa leeyahay run miyaa mariya diamondkii aan ka quustay mar labaad miyaa gacanta ku dhigay waan iska soo baxay sacaygii baa raadiyey sacaygii dee sac kaloo helayba oo iskala baashaalaya joogu waa u degan yahay waxaa soo raaraadiyey ugu dambeyn sacay waa helay sacaygii baa soo kaxaysay sacay kale waa iskaga imi waa soo socday marka waxaan rabaa marka waa subaxii dambe inaan tagno dee oo aadno qasrigeygii waa naloo sheegay gurigeygii dhinacu naga xigo dadka meesha degan waa dad boqortooyo ah oo wanaagsan dhibkii aan soo marno dhan weyna ilaawsiiyeen markii aan ka tegeynina waxay noo macasalaameen sida boqorada ayagoo noo muujinaya jacayl ayagoo noo muujinaya ixtiraam ugu dambeyn waan kasoo tagnay waxaanu nimi gurigeegii meeshii aanu maalinkii ka tagno ka duulnay ayaanu nimi runtii waa aamino waayay sida naloo soo dhoweeyey inaan dhibanaaba naloo haystaba laakiin dariskaygii way isoo dhoweeyeen alxamdulilah annagina waan soo badbaadnay subaxii dambe marka waagu bareedee sacaygii wuxuu noqday saaxiibkaygii qalbiga maalin kasta waan u imaadaa dhabarkan u riixriixaa waan iska daawadaa abaal weyn buu sacana igu leeyahay waan iska seexdaa haddana subax walba markaan soo kaco waan u imaadaa sacii isagoo geeda cunay oo dhargay oo iska dhex fadhiya beertiisa ayaan aniguna dhabarka u salsalaaxaa
abaalku igu leeyahay sacan ma qiyaasi kartaan. Aad baan u jeclahay mar walba oo aan hurdada ka soo kaco. Waa anigan waan fiirsanayaa, waan daawanayaa. Waxa ugu horeeya oo indhahaygu qabtaan waa sacayga. Sidaan u jeclahay, alxamdulilah, ilaahayna wuuna soo badbaadiyey. Qasrigayga waan ku soo laabanay. Markana waxay maraysaa galab walba waxa caado noo ah inay sacayga qoraxda markay sii dhacayso inaan sii daawano. Waxa weeyaan halkaasaan ku faraxsanahay. waa mahadsantahay haddii aad nala soo gaartay dhammaadka qaybtii 3aad ee vloggeeni Diamond-ka iyo wixii naga raacay. Insha Allah qaybta 4aad iyo waxyaabaha kale ku sii xiga si aad ula socotid channel-ka subscribe saar, muuqaalka like badan saar oo like badan ku shubo, waliba like aad u fara badan 2 ama 3 ka mid ah saaxiibadiina u share gareeya. waa mahadsantihiin.